ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله. walaalyaal dhammaan waa salaamantihiin, waalidiintii sharafta leh, ardaydii, culimmadii, dhammaan inta meeshaan ku soo kulmeen, akhyaartii, waalidiintii, waa salaamantihiin. salaam kadib waad mahadsantihiin. maasha allah, maanta kulankaynii waxaas ahaayey sanad guriidii ka soo wareegayta dugsigan bilaawadiisii yaa maanta kulankaynii as ahaayey. dugsigan waxaa la furay sanad hore xilligan oo kale, bishaan waxay maraysa 14 sidii maanta oo kale 2020kii yaa dugsigii la furay. dugsigii marka waxaa ka soo wareegay hal sano. xafladdaasi galabta meeshaan lagu qabanaa. maasha allah, dhammaan aadaan u faraxsannahay markii aan aragnay ardaydan saan diinta loo baray, markii aan aragnay ardaydan saan qur-aanka u akrinayaan, markii aan aragnay ardaydan saan khayr u leh. maasha allah, aadaan u faraxnay. marka arrintaasina arrin aad u fiican waaye in lagu farxo. sanad guridii oo dugsigii ka soo wareegay inaan ku faraxno aad ay u fiican tahay. marka farxaddaasi ilaahay asagoo ka warramaya waxaas yidhi: qul bifadli illaah, qul leh nebiyow, bifadli illaahi ilaahay fadligiisii oo islaamka ah iyo wa biraxmatihi ilaahay naxariistiisii qur'aanka ah, fabidaalika kaagaasi falyafraxuu ha ku farxaana dadka. marka huwa khayrun mimaa yajmacuun, in oo kaagaasi lagu farxo yaa ka khayr badan waxyaalaha ay aruurinayaan oo adduunya. marka galabta annaga meeshan waxaa lagu soo bandhigi ardaydii oo intaan oo dadaal badan lagu bixiyey, dadaalkoodii yaa meeshaan galabta lagu soo bandhigi. marka maasha allah, dadaalkoodii 100%. haddana waxaan leeyahaynaa macallinka roorkiisii roor ha ku darsado, ardaydana ayagane sidaasi oo kale roorkoodii roor ha ku darsadaano, dadaalkoodii dadaal ha ku darsadaano. meeshaan iyo meel ka fiican aan ka rabnaa insha allah sano dambe. waalidiintii ayagane oo dadaalkan bixiyey, ayagane roorkiinii roor ku darsadaan leeyahaynaa. maasha allah, arrin oo aan ku faraxsannahay waa bandhigitaankan oo galabta meeshaan lagu sameeyey. marka waalidiintii waxaan leeyahay sawir inay muujiyaan, dadaal badan ay muujiyaan, wax walboo dhibaato ilmahoodii waxbaritaankii ay ku marayaan ay ku sabraan. waalidiintii sawaran faraa iyo dulqaad, maxaa yeelay wax ay raadinayaan wax weyne. yaquusu lbaxra man dalaba la'aali a la yidhaahdaa. badda waxaa yumbado oo hoos galo ninkii oo jawhar raadinayo. baddii hadda biyihii dhexdooda isdhexgalaa, waxaa laga yaabaa 3 meel 4 meel inaa hoos u galo. maxaas raadinayaa? waxaas raadinayaa qaali ah. waxaad raadinaysid haddii inaa qaali ay yihiin aad ogaatid, wax walboo dhibaataya waad u sabraysaa. marka waalidaha khaasatan hadda zamanka waxaa waaye hooyooyinkii cunugii keeno, hooyooyinkii ilmihii iyo wixii ka oo la socdaan, ayagana nimankii qabaan arrintaasi raalli ay ka yihiin. maasha allah, arrin aad u fiicnaasho badan waaye. waxaan leeyahay ayagane shayaadiinta meelal badan oo ay ku soo gambanayaan ha jiraan, meelahaasi inay iska fiiriyaan. waxyaalaha oo aad ardayga ugu fiican waxaa ka mid ah ninka hal macallin asqabaada qur-aanka ah. hadda waxaad arkaysaa magaaladan yaa macallinkaadi ah cunug u saab macallimiintiisas hilmaamaaba. dugsigan waa kaye alifkaa lagu bilaabay, alxamdulilah la geey, dugsi kale la sii geey, dugsi kale la geey. xaafadan 100 macallin cunugaasi waxaa barni leehayaan, wamaca daalika sidii la rabana ma aha.
إلا علة هذه اعتماد ماهنة وحالا روا عنوغا معلمكي لوغيو سبب الآن معلم كاسي إنا دكسي على وصارا وحوال بادعي كارو دكسي ويلكادي ويلكالا إزغالي كاران عنوغادي عنوغالا إزغالي كاران وحاسيطان وحلحلين كاروا الموهي أي سمايان أيقو بإسلاماركي وإلمامويين والدها وحاوليها ميلا البضل شيطانكي الصوبومنا أيقنا وحال روا إنا dad baraarugsan oo soo jeeda ayaa ahaadaan waxaa kale waalidihii aan la dardaarmaa wax walba oo dadaal ah amba maal ah amba caqli ah amba maskax ah ina ilmahoodii ay ku saacidaan ay ku kaalmeeyaan waxaa la rabaa cunugaadii markii kalkaan dugsi asrawo dugsi meeshii ugu fiicnaasha badan xaafadan dugsi meeshii ugu fiicnaasha badan magaalada lagu fikiro lacag wax laga rooro maaha waxa muhiimadda waxa waaye cunugan 3 sano 4 sano 5 sano haddii dugsigaas ku jiraado inaa waxaa soo saaro cunugii hor u socod inaa sameeyo cunug oo ilmahadu waxaad arkaysaa waalidihii badi wax ma yaqaanaan ayagii qaarkoodii ilmihii ma lala socdo ninaa hadda cunug yara hadda ka hore waxaas yidhi hooyadiisii intaad ku jirtaa cammaa ku jiraa saaka intaad ku reebtay يتساءلون قريبا عما يتساءلون عشر اسكدافه يا عشر كتوم ميلا ديلو ديغو هل ميلا تا وحنا معايا ما كان انت سيدان والدك قرانكي ما يغانو ساكي قرانك انت بلا يركيغي عما انت لو ريبي يتساءلون الغريبا marka intaasi waxa keenay dadaal la'aan intaasi waxa keenay diintii aqoon aan loo lahayn marka waalidaha waxaan dhahaa ilmahoodii qof ayaga la gelinayo oo diinkii bari karo ilmihi u geeyano wax walba macalinkaasi asubaado ha u sabraano hadda waxaad arkaysaa waalida waxaad arkaysaa iyaarkiisii aabihiisii iyo hooyadiisii way joogaan agoonnimo wax lagu barooyaa meel college oo agoon loogu talagalay meeshii cunugii la geynayaa dadkii waxaa lagu sheekeynayaa cunuga agoon waay hooyadiisii aabihiisii way joogaan هي أم ارتيالكيسي العقل أم وحا العقل هويديسي العقل إن أقومنكي أدخل حضرته عنقان أو ماشي لغو بيلو قم كلا أسك أجر قروب صدو وحكا في عناشا بضل عنقاني أسك أجر قروب ستد سومالي بخير الله سيه وحا آد أيود دالان معلمين تا لعكا مقالان إلمها وأقومنك سومالي ميلا الله ماشي أي جوبتو إلمها أقومنك العقل يوم قادر marka adiga dugsi oo dhar loo gadaayo dugsi oo la kaalmaynayo maxaa ku gelinaya adab maal hayse adab sadaqa baxsanoo sidee ilmahaadii ku sadaqayso waalidaha waxaa la dardaarmaa ilmihii ha ku dadaalaan sidii ay u naqal lahaayeen berri markii ay dhintaan ilmu u ducaynaayo qur'aan u akrinaayo haddii ay dhimanayaan asiiban ku celinayaan ilmihii sidaasii si ay ku naqal lahaayeen laga dadaalo waa رسولك إني صلى الله عليه وسلم وحسيري قفك هذه أصننته عمل كيسي وقوة وح عمل أو أصيغي وصعنا يماله أصيغنا نودي بقوة إلا 6 حرمات أو حاجران أعماش هذه أو يبقوين 6 داسي وحواية أذيكي علمي هدد أدبرتي علمي ولو انتفاع نويا علمي دلال لسيبرويا أما قرآن هدد أدبرتي أجيرك هذه واسعنا 200 300 400 سنة أذيكو إسكدوغن وباليودي أجيرك هذه الصعنا طالما وحا رسولك يا شيخ صدقته جارية وقف هذه مسجد واحد قشتك دكس واحد جلست ما شاء الله هذيك ودمتي انت كل سنه دوغن اجرك هذه عملك هذه وصعنا تنسدحات وانيغا مهمتيدي اي تاي waxa waaye walad oo saalix ah oo adiga ku duceynaayo cunugaadii waa ku dadaashay wax baad bartay dugsiga u qaalisanaad geysay macallimiinta ugu fiicanaad u geysay cunugii wax baad bartay cunugii waa edebtay cunugii waa ku dadaashay cunugii waa tacliintay wixii qarash aad haysay cunugaasi aad gelisay بدتي ربك هذه كوتمادو عنقاسي وكوتعينا قرآنك هذه قد بلتها صغرنا قرآنك سياسكو صغرنا عملك هذه أجرك هذه وصعنا مرك والديني وحواي واحد هذا الوسي وحسالا معها وحجر الوسين المان إن وحي برتان وبره علمية إذن سودعيات لكن هذه علمية وحا لبرم
meelaha wanaagsan aan la tusanin waxaa laga yaabaa meel xun ilmihii inay tagaanoo ayaga nafsadoodii halis ay gasho inaa waxay kugu taraan iska dhaafee ayagii naftarkoodii cariiri ciqaab iyo dhibaato badan inay ku baaluqaan marka waxaa la rabaa waalidiinay ilmihiinii inaad ku dadaashaan ilaahi waxaa siri yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara dadka mu'miniinta oo nafsadiinii iyo ehelkiinii ka dhoora naarta waxaa lagu hurinaa dadka bani aadamka lagu hurinaa naarta adduunyo oo kale lama mid ah aakhirada naarta waxaa lagu hurinaa dadaa lagu hurinaa naarta dadkaasi ay kuraysaa marka naartaasi oo yaa waquuduha annaasu walxijaara idinkii iyo ehelkiinii iyo dadkiinii ka dhowra marka ikhwaanii waxaan isku dardaarmaynaa mar walbo 3 arrimooda hadda haddii oo la helo cunugii waxaa barana 3 arrimood maxaa waaye macallin oo qaari ah oo qur-aanka yaqaana haddii la helo waalid oo quursama leh haddii la helo arday oo qaari ah arday oo qaylo dheer haddii la helo cunugii qur-aan waa baranaa lisma weydiinaayo waalidkii mar walba haddii oo bishii ama arbacadii waxun la weydiiyo warabax iga tag macallinka mar walba wax la is weydiiyay macallinkaana nacay macallinkaan wax oo haddaa deedka warrabe meeshii nafcigii iyo wixii aad u yaraanayo marka waxaa la rabaa waalidiintiinii wax walba oo karaankiinii ah oo ilmihiinii ay idin weydiiyaan inaad dhiibtaan waalidkii quursam inas lahaado macallinkiina asigina qaari inas ahaado ardaygiina inas qaayil dheeraado 3daasi arrimood haddii la helo cunugii wax waa baranaa shaki la'aan waaye marka ilmahan dhammaantoodii meeshaan joogaan iyo dad walba oo diinta baranaayo waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay diinka allah u sahlo ilaahay diinka allah u sahlo waalidiintii dembigoodii allah dhaafo waalidiintii oo soo ajiibay macallinkan oo intaan dadaal soo sameeyeen waqtigoodii galabtaan meeshaan soo geliyeen ayagan dembigoodii allah dhaafo dembi waalidkoodii allah dhaafo mucallimiintoodii mashaayikhdoodii dhammaan dunuubtaynii allah isku dhaafo جنة الفردوس الله نوافجيه جنة الفردوس الله نقليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والدينتي soo sabray ayagoo ilmihii waxa ka soo tagay oo guriga howl badan ay ka taalo macallinkii soo ajiibay oo ilmahooda u muujiyay farxadda ayagana waxaan leeyahay miisaankiina xasanaadka Allah idinku kabo wax badan ayaad qabateen idinkoo ardaydiinii farxadda la qaybsaday macallinkii sano hore xilligan oo kale dugsigan loo aasaasay hadda maanta heerkan maraayo in la farxad geliyo maxaa la yidhaahdaa qalbigiisa la wanaajiyo ardaydii la farxad geliyo inay dad leeyihiin inay ogaadaan ardayda iyo macallinkoodaba aad ayay muhiim u tahay annagana wax weyn ayay noo tahay xaflad sidaan u wanaagsan inaan ka soo qayb galno waxaan leeyahay ardaydii sano hore ayagoo meel aan ku ogeyno dugsiga markii la bilaabay u dul qaatay macallinkii inay garab istaagaan iyo waalidiintii isku dayay maanta heerkaa soo gaarsiiyey qofkii hadda soo galay mudnaan ayay ka leeyihiin sababtoo ah hadda dugsi diyaarsan ayaa yaalla maalintaasna meeshaan dugsi ma ahaynin waxay ahayd boos bannaan marka dadkii waalidiintii iyo u bareeray in dugsigan wuxuu noqon karaa aan la ogeynin inay yimaadaan ilmahooda ku aaminaan waalidiintii u bareer waxaan leeyahay hambalyo ayaa leeyahay maanta meel wanaagsan ay taagan yihiin sidii macallinkiina aad ku taageerteen le ha ahaato wixii waana ahaa iyo wacdi ahaa meel aan ka wacdiyo iyo waxa ma joogo mashaaikhdayda ee joogaan maasha allah ayagaa maxaa la yidhahdaa soo dhameeyey laakiin maadaama macalin xuseen oo isku waxaan ahayn oo saaxiibna aan nahay hal kelimi waxaan afkayga la arko oo keliya ayay ahayd marka waxaan idin leeyahay hambalyo qur'aanka wax loo dadaalo sidii culimmada ay sheegeen waxaa ugu muhiimsan qur'aanka kariimka ayaa ugu muhiimsan maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay khayrukum waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana wa callamahu qur'aanka qofkii barta ama dadka baraa idinku khayr badan marka sidaas darteed wax allaala wixii khayr ugu sheegi lahaa idinkaa gacanta ku haayo ardaydiinina way baranayaan macallinkiina waa kii dadka baraaya idinkiina waa kuwii dadka u kaalmeynaya waxaan leeyahay waalidiinta culays badan ayaa jiro markii ardayda wax la baraayo dhan kasta culays uu ka imaan karaa waxaan leeyahay waalidiinta inay sabraan ardayda waxbaristooda inay ku sabraan maxaa yeelay sida la sheegay qur'aanka
wuxuu dadka anfacaa aakhiro iyo adduunyo adduunyadii adigaaba ku intifaacaayo aakhiradiina waa kuu shafeecaa waalidkii sida sheekha uu noo sheegay waalidkii qur'aanka dadka soo barayna maalinta qiyaama haddii la gaaro taaj weyn ayaa loo xiraa taajkaas wuxuu ka iftiin badan yahay qoraxda maanta adduunyada taagan maxaa uu kuu dhiman haddii adduunyadii aakhirada lagu intifaacay nafciga qur'aanka adduunyada lagu helaa saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayagoo safar ah oo hogaaminayo abu saciid alkhudri waxay soo mareen maxaa la yidhaahdaa magaalo ay soo mareen tuuladii waxay ka waayeen dad martiqaada waxay iska jiifteen bannaankii haweenkii maxaa la yidhahdaa bahalka dawaqalooca la yidhahdaa wuxuu qaniinay ninkii tuuladu talinaayay oo guddoomiyaha ka ahaa ninkii daawo kasta waa loo raadiyey waxaa la waayey wax lagu daaweeyey markaasaa waxaa la yidhi dadkii martadii ahaa oo haddaay aan u diidnay martaqaadkii aan u diidnay aan ka raadino qof oo dhakhtar ah wax daaweeyey waa loo yimid markaasaa waxaa lagu yidhi ninkii sayidka ahaayoo boqorka ahaayaa la qaniinay oo tuulada guddoomiyaha ka ahaa wax daawo ma haysin markaasaa waxay dhaheen haa daawo waan haynaa laakiin mar horaa waxaad noo diideen martaqaad hadda ninkiina ma idin daaweynayna ilaa wax meel aad ku sheegtihiin xoolo way la gorgortameen waxaa lagu sheegaa in la siiyey calaa qadiicin min alghanam goosan ari ah in la siiyey oo ilaa 30 iyo famaa fooq ari ay ku qaateen markaasaa abu saciid alkhudri iyo asxaabtii la socotay waxay ku akhriyeen maxaa la yidhahdaa toddoba faatixay ku akhriyeen umul qur'aan ninkiina waa caafimaad arigoodana way soo kaxaysteen marka qur'aanka 7 faatixa waxaa lagu goostay maxaa la yidhaahdaa 30 neef oo ariyaa lagu goostay marka waalidiinta waxaan leeyahay u sabra macalinka wax la siinayo ha lagu sabro maxaa yeelay waxaad bixinaysid waxaa ka weyn waxa ilmihiina la baraayaa ka weyn sababtoo nabiga qur'aan wuxuu ku sheegay qur'aanka in la akhriyo hashi kalimo maxaa la yidhaahdaa alxasanatu bicashri amhaaliha 10 ajr aad leedahay hashi kalimo markaasaa wuxuu yidhi laa aquulu alif laam miim xarfun alif laam miimna ma dhahayo hal xaraf waayo laakiin wuxuu yidhi alifku waa hal xaraf laamtan waa hal xaraf miimkina waa hal xaraf alif laam miim haddii si fiican loo aqriyo qofkaas wuxuu helaa 30 ajir uu helaa alif laam miim kaligeeda waxaa lagu helaa 30 ajir lagu helaa marka waxaa la idin barayaa sidaas u qiimo badan marka waxaan leeyahay waalidiinta ha lagu sabro ardayda wax badanaa jiri karo maxaa la yidhahdaa ardayda iyo waxaa macquul ah macalinka in mararka qaarkood la isfahmi waayo ardayda waxaa ku badan in markii macalinka meel ay ka galaan ay waayaan mararka qaarkood in wax lagu soo sheego marka waalidiinta waxaa codsiya inay noqonin seef labood inaan la noqonin oo arday markuu wax soo sheegto wixii in la iska hubiyo waxaa lagu leeyahay arday hebel aniga soo dagaalnay macalinkiina waa igu fiirsaday waa i garaacay macalinkiina anigu igu daray marka waxyaabahaas haddii la sheego kabtaada ha la soo boodin marka ugu horrayso macalinka ka wareeg wixii jirana ogow kadibna xalkeeda ku dhaqaaqo ha aadin daraskii gabadhaada soo garaacday ha aadinoo macalinka xaggiisa laga soo wareego marka dardaaran wixii ahaa waxaa dhameeyey culimmadii ayaa dhameeyeen qur'aanka sharaftiisa lama soo koobi karo maxaa yeelay nabigu wuxuu ku sheegay mathalu alladii yaqra'u alqur'aana wahuwa xaafidun lahu qofkii maxaa la yidhaahdaa qur'aanka akrinaayo asigoo xaafid ahoo kor ka yaqaano maca safarati alkaraami albarara waxaa lagu sheegay malaa'igta inuu la socdo qofkii qur'aanka kor ka yaqaano tajwiid ku akhriyo wuxuu la jiraa maca safarati alkiraami albarara malaa'igta ayuu la jiraa qofkii kalena maxaa la yidhi waaladii yaqra'u wayatacaahaduhu wahuwa calayhi shadiidun qofkii qur'aanka akrinaayo uu qur'aankana uu ku adag yahay riwaayo kale waxay leedahay wayatatactaco qur'aankii aad ayuu ugu adag yahay oo maantana waa ku celcelinaa wuxuu leeyahay waladiina kafaruu waladiina kafaruu waladiina kafaruu sidaasuu dhib ugu qabaa qofkaas waxaa leeyahay falahu ajraani 2 ajar uu leeyahay qur'aanka maxaa yeelay hal ajar waa dadaalkii qur'aanka uu ku dadaalay maanta dhan uu ku celcelinaayo hal ajarna waa qur'aanka akhrintii uu akhriyay marka qur'aanka mar waliba laguma khasaaro iyo mashaayiqiinta hal sano ayuu noo furiyahay halkan sano falilaahi alxamdu walminna waxaa noo suurtagalay in 30 arday in afartii ay ku bartaan ay soo saarmaan insha allah sanadka damban waxaan rajay doonaa intaas wax ka badan in carabkooda uu hagaago fartooda ay soo saarmato ayaa insha allah
ayaan rajaynaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله.